بسم الله الرحمن الرحيم وهبين مسبتيه او اي حد سو غليسو afarta bisha October sanadka 2025 oo ku beegan 12 bisha Rabiicul Thani sanadka 1447 taariikhda hijriyada qodobada caawa barnaamijka aan idinku haynana waxa kamid ah Trump oo caawa dignin culus u jeediyay Xamaas maxay ku aadan tahay digniintan iyadoo laga hadlayo heshiis iyo xabad joojin warbixin ayaan idin haynaa amuurtan Israa'iil oo duqeynta iyo weerarada halkeedii ka sii wada ku hayso Mareykan Gaza iyadoo maanta oo kaliya ku dhawaad 60 qof lagu dilay aagaasi xoogagga iska caabinta ee Falastiiniyiinta oo ka warbixiyay howlgalkana militariga Israa'iil oo ay ka fuliyeen Gaza Netanyahu oo kulan degdeg ah isugu yeeray wasiiradiisa mayalka adag ee ku jira xukuumadda kuwaasi oo durba bilaabay inay ka soo horjeestaan dagaalka in la joojiyo gudaha Israa'iil la caawa 100,000 oo qof ayaa isugu soo baxay barnaamijyo ay ku dalbanayaan hirgelinta qorshaha Trump iyo joojinta dagaalka culays ayaa la saarayaa Netanyahu dowladda waddanka Holland ayaa ku adkaysatay go'aanka ah in la hakiyo qalabka iyo dayactirka dayuuradaha F-35 ee Israa'iil loo dhoofin jiray inkastoo go'aan maxkamadeed maanta uu soo baxay in ka badan 30 qof oo dhimasho dhaawac ka soo gaaray duqeyn Ruushka oo ka geystay gobolka Sumy ee dalkaasi Ukraine Iran oo dil toogashaha ku fulisay 6 qof oo lagu eedeeyay argagixiso iyana la shaqeynayeen Israa'iil sheekada ugu dambaysa ee barnaamijka aridii kugu hayaana waxay ku aadan tahay Trump oo sawirkiisa ku dhigsanaya lacag cusub oo dollar ah oo la doonayo in la sameeyo waa sheeko cajiib ah dhammaan qodobadan iyo kuwa kale oo faahfaahsan iyo wixii wara ee soo kornaytayna hawada ku jirno ayaan idinku soo gudbinaynaa sidoo kale barnaamijka waxaan idinku haynaa war degdeg ah oo hadda naga soo gaaraya magaalada Muqdisho gaar ahaan qaraxii ka dhacay godka Jilco iyo weerarka halkaasi ka socday intaan u gudbin wararkaasi waxaynu ku hormaraynaa xagga Ukraine halkaasi oo lagu soo waramayo duqeymo Ruushka oo ka geystay in ay sababeen dhimasho iyo dhaawac hal qof ayaa dhintay 30 kalena way dhaawacmeen kadib markii Ruushka oo adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn uu duqeeyay xarun tareen oo ku taal magaalada Shostika ee waqooyiga bari ee dalkaasi Ukraine sida ay xaqiijiyeen mas'uuliyiinta dalkaasi madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa weerarka ku tilmaamay mid arxan darro ah isagoo sheegay in 2 tareen oo rakaab oo isdaba joogay la beegsaday tareenka koowaad ayaa ahaa kuwa gudaha magaalada ka shaqeeya halka tareenka labaadna uu ku socday caasimadda Kiev oo uu ka dhacay halkaasi xilli dadka la daadgureynayay xafiiska dacwad ogaha deegaanka ayaa sheegay in nin 17 jir ah laga helay meydkiisa mid ka mid ah tareenada burburay Oliski Kuluba oo ah wasiirka dibodiska iyo ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha Ukraine ayaa sheegay in weerarka uu 2 jeer dhacay iyadoo kan labaad la beegsaday dadkii gurmadka ahaa iyo kuwii badbaaday ee weerarkii hore ka badbaaday madaxa shirkadda tareenada qaranka ninka lagu magacaabo Oleksandr Barstofiski ayaa ku tilmaamay duqeynta weerar fuleynimo ah oo lagu doonayo in lagu gooyo xiriirka bulshooyinka ku dhow jeeda hore ee dagaalka magaalooyinka gobolka Sumy ayaa waxa lagu soo waramayaa in inta badan duqeymuhu ay Ruushku la beegsadaan magaaladan ayaa waxa sidoo kale ka go'day korontadii magaaladan ka hor dagaalka intuusan qarxin waxa ku noolaa 70,000 oo qof duqeymaha noocan ah oo lagu beegsanayo shabakadaha tareenada iyo korontada ayaa Ruushku u kordhiyay 2 bilood ee la soo dhaafay iyadoo Kiev ay ku eedeysay Moscow in ay hub ka dhiganayso xilliga qabowga jiilaalka oo ay doonayso dadka in dhaxan ay ku disho dhinaca kale militariga Ukraine ayaa sheegay in weerar kale ay ku qaadeen warshada sifaynta shidaalka ee Krishi oo ku dhow magaalada St Petersburg oo Ruushka uu ku tilmaamay weerarkaasi inuu sababay dab iyo qaraxyo weeraradan ayaa imaanaya xilli dagaalka uu galay sanadkii afaraad iyadoo qasaaraha shacabka iyo burburka kaabayaasha noloshana ay sii kordhayso halkaas aynu kaga gudubno imika aynu eegno xaggaas iyo Iran iyadoo la sheegayo in la toogtay ilaa iyo 6 qof oo la sheegayo inay la shaqeynayaan Israa'iil laguna eedeynayo falal argagixisnimo hay'adaha garsoorka dalka Iran ayaa maanta shaaca ka qaaday in ay fuliyeen
xukun dilah oo lagu riday 6 qof oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin koox argagixisaha kuwaasi oo lagu helay dambiyo la xiriira wada shaqayn ay la lahaayeen Israa'iil iyo weerar hubaysan oo ka dhacay gobolka Kazakhstan ee koonfurta galbeed ee dalka Iiraan. warbaahinta dawladda ayaa sheegtay in la toogtay 6daasi qof oo ka mid ahaa shabakad gooni goosad ah oo argagixis ah isla markaasna u shaqaynaya sida hadalka loo yiri hay'adda sahyuuniyadda. marka ayaa waxaan taasi ku daray in eedeysanayaashu ay qirteen inay qorsheynayeen fulinta weerar dhiig badan oo ku daato ay ku jiraan in la kharijiyo saraakiil. horey waxay u qirteen in ay dileen 4 askari oo ka tirsan laamaha ammaanka ee magaalada Khormashaar. sida lagu sheegay warbixinta marka laga soo tago weeraradan lagu tilmaamay argagixisnimada ee eedeysanayaashan lagu eedeeyay, haddana waxaa kaloo lagu soo oogay in ay xiriir toos la lahaayeen hay'adaha Israa'iil, waxaana la sheegayaa inay ka helayeen taageero mid ka mid ah sida hadalka loo yiri cadowga Iiraan. warbaahinta maxalliga ah ayaa sidoo kale xustay in ficilada argagixisada lagu fuliyay ee xukunka dilka ay qatar joogta ku ahaayeen kooxdani weeye amniga iyo badbaadada shacabka gobolka Khuzestan halkaasi ay rabshada ka wadeen. Iiraan ayaa sanadkan aad u kordhisay dilalka ay fulinayso gaar ahaan dadka lagu eedeynayo in ay xiriir la leeyihiin sirdoonka Israa'iil Mossad. xaaladan waxay imaanaysaa kadib weerar ballaaran oo Israa'iil ay ku qaaday Iiraan 13 bishii June, waxaana la bartilmaameystay xarumo nuclear, kuwa militariga, xarumo rayid iyo kuwa dawladeed, taasi oo banaanka keentay nuglaasho xagga amniga oo Iiraan waxay ku jawaabtay duqeymo ay la beegsatay gudaha Israa'iil kuwaasi oo waxyeello weyn loogu geystay goobo kala duwan. markan aynu eegno xaggaasi magaalada Amsterdam ee dalka Holland, dawladda waddanka Netherlands ayaa lagu soo waramayaa in ay ku adkaysatay hakinta qalabka dayactirka iyo agabka kale ee diyaaradda F-35 ee loo dhoofiyo Israa'iil, inkastoo go'aan maxkamadeed uu soo baxay. dowladda Holland ayaa shaacisay inay sii wadi doonto xayiraadda ay saartay dhoofinta qaybaha dayactirka ee diyaaradaha dagaalka F-35 ee loo diray Israa'iil, inkastoo maxkamadda sare ay ogolaatay in xukuumaddu bedeli karto siyaasadeeda. war-saxaafadeed ka soo baxay ayaa lagu sheegay in xaaladda haatan taagan awgeed aysan macno samaynayn in la soo celiyo dhoofinta qaybaha ay ka kooban tahay diyaaradda F-35 ee Netherlands u dhoofin jirtay Israa'iil. war-saxaafadeedku wuxuu ku baaqay in si dhaqso ah loo gaaro xabad joojin si loo soo afjaro colaadda, loo yareeyo silica shacabka, lana sii daayo maxaabiista. xayiraad dhoofin ayaa saarneyd diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil u adeegsatay dagaalka xasuuqa lagu sifeeyay ee Gaza tan iyo bishii Febraayo 2024, markaas oo maxkamad rafcaan ay amartay dowladda inay joojiso dhoofinta. laakiin maalinimadii Jimcaha maxkamadda sare ayaa go'aamisay in maxkamadda rafcaankaasi ay dhaaftay awoodeeda, iyadoo sheegtay in dejinta siyaasadda arrimaha dibadda ay tahay awoodda dowladda ee aanay ahayn mid garsoor, taasi oo ka macno ah in maxkamadda sare ogoshahay in xukuumaddu dhoofin karto qalabka dayactirka diyaaradda F-35. maxkamadda sare waxay siisay dowladda Holland 6 toddobaad si ay dib ugu eegto siyaasadeeda ku saabsan rukhsadaha dhoofinta, balse dowladda Holland waxay go'aansatay inay sii wado xayiraadda saacado gudahood markii uu soo baxay go'aanka maxkamadda. Holland waxaa ku yaala xarun kayd oo qaybaha dayactirka loogu talagalay diyaaradaha F-35 ee Mareykanka leeyahay, halkaasna waxaa qalabkaasi loogu raro dhowr dal oo saaxiib la ah Washington oo ku jirto Israa'iil, iyadoo lagu saleynayo heshiisyada dhoofinta. dowladda Holland ayaa mar kale xaqiijisay ka go'aanshaheeda barnaamijka F-35 oo ay ku tilmaamtay arrin muhiim u ah ilaalinta ammaankeeda iyo kan xulafadeeda. go'aanka maxkamadda sare ee shalay ayaa soo afjaray muran qaanuun oo muddo dheer soo taagnaa oo ku saabsan dhoofinta qalabka diyaaradaha F-35. Martin Pollack oo ah ku-xigeenka gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa sheegay in maxkamadda rafcaanku qalad samaysay markii ay la safatay kooxaha xuquuqda aadanaha oo ku dooday in dhoofinta qalabka diyaaradahan ay qayb ka tahay jebinta qaanuunka caalamiga ah ee Israa'iil. qareennada dowladda ayaa ku dooday in Israa'iil si fudud meel kale uga heli karto qalabka diyaaradda haddii Holland ay mamnuucdo dhoofintooda. bishii Juun, maxkamadda sare ee London ayaa diiday dacwad qaanuun oo koox xuquuqda Falastiiniyiinta u dooda ay u gudbisay maxkamadda, taasoo doonaysay in Britain laga horjoogsado dhoofinta qaybaha ay ka kooban tahay diyaaradda F-35 ee loo diray Israa'iil. daawadayaal, waxaan u gudbaynaa wararkii ugu dambeeyay ee Gaza. Israa'iil waxaa ka taagan xaalado adag
Netanyahu waa isdifaacaya golihii wasiirada ee mayalka adkaa ayaa si weyn uga soo horjeeda qorshaha dagaalka laakiin duqeynta ayay Israa'iil sii wadaa waxaan kaloo eegi doonaa magaalada Qaahira iyo magaalada kale ee Sharm el-Sheikh oo kulamo kala duwan oo Gaza ku saabsan ay ka dhici doonaan sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka oo sheeko xiiso leh aan idinkugu haynana waa inoo soo socdo Gaza aynu ku bilowno halkaasi oo war goordhawata telefishinka Al Jazeera uu baahiyay lagu sheegay in dagaalamayaasha Falastiiniyiinta gaar ahaan guutooyinka Al-Qassam ay ku beegsadeen qoriga Al-Yaasiin 105 ee garabka laga rido cagaf militariga Israa'iil ay leeyihiin waxaana la sheegay in sidoo kale ay hoobiyaal ku duqeeyeen ciidamo Israa'iiliyiin oo ku sugnaa deegaanka Talalaxawa halkaasi oo isku dayeen inay ka soo gudbaan waxaana la sheegay in la laqsiyay dhowr saalbo oo hoobiya docda kale inkastoo ammaan iyo nabad iyo xabajoojin laga hadlayo Israa'iil wali waxay sii wadaa duqeynta maanta oo kaliya 55 qof ayaa la dilay 39 kamid ah dadkaasi ayaa waxa lagu soo waramayaa in lagu dilay magaalada Gaza ee bartamaha Jidda Gaza waxaana warku taasi ku daraya in duqeymahan ay wali sii socdaan وهجان ومركنا إنه يجري حاجة سي واشنطن جرهن مدحونها أمريكا دونالد ترامب ودقنين وجدي حماس دونالد ترامب أيه وحى وجد دقي حماس إن أي دب ودكتو فنيت قرشيه سكو سابسن دجال كقزة ترامب أيه فرهين وكقريب رها برشدة وحى وكيري حماس وإن نخسو فلسا قرشهم حديك له لمان حلشوا ينكو وصور تجال سوق وجد دقي إنه صنع بري دونين دبودع سمايان مدحونها أمريكا كأيه سيدو كله waxa uu ku amaanay go'aanka Israa'iil ee ay sida ku meel gaarka ugu joojisay duqeymaha laakiin arintaas waxba kama jiraan oo 55 qof ayaa la dilay tan iyo maanta duqeyntana waa ay sii socotaa dad badan ayaa la yaabay hadalka Trump hadalkiisa ayaa waxa uu yimid iyadoo Xamaas xalay ay soo saartay bayaan ay ku xaqiijinayso in ay ogolaatay sii deynta dhammaan maxaabiista kuwa nool iyo in la wareejiyo kuwa dhintay meedadkooda ama lafahooda sida uu qorayo qorshaha Trump ee horey loo shaaciyay Xamaas waxay sheegtay inay diyaar u tahay wada xaajood dhexmara dhexdhexaadiyaasha si looga wada hadlo dhammaan faahfaahinta ku saabsan fulinta heshiiska waxay sidoo kale ku celisay Xamaas inay ogashahay in maamulka Gaza lagu wareejiyo hay'ad Falastiiniya oo madax bannaan laguna dhiso wada tashi qaran oo taageero ka helaya dunida Carabta iyo Islaamka Trump ayaa soo dhaweeyay jawaabtaas isagoo sheegay inuu si weyn ugu faraxsan yahay in maxaabiista lagu soo celiyo qoysaskooda isagoo intaas ku daray tani waa maalin aad u weyn oo aan horey loo arag sida hadalka uu dhigay war hadda soo dhacana waxa uu sheegayaa in wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar ay sheegtay in 6 bishan ay martigelin doonto wada hadallo dhexmari doona ergooyinka Xamaas iyo Israa'iil si looga wada hadlo qorshaha sii deynta maxaabiista dhanka Israa'iil markaynu eegno telefishinka Kanal 12 ee laga leeyahay Israa'iil ayaa waxa uu tabeeyay in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ku casuumay wasiirka amniga qaranka Itamar Ben-Gvir iyo waliba wasiirka maaliyadda Bezalel Smotrich kulan degdega si ay uga wada hadlaan xaaladan ka soo cusboonaatay ee marayka Gaza iyo kadib markii xarakada muqaawamada Xamaas ay ku dhawaaqday jawaabta qorshaha Trump dhinaca kale qoysaska maxaabiista Israa'iiliyiinta ayaa walaac ka muujiyay hadallada ka soo yeeraya wasiirka amniga qaranka iyo kan maaliyadda Israa'iil oo isku dayaya inay carqaladayaan wada xaajoodka socda arrintaasi awgeed hogaamiye ka mid ah mucaaradka hogaamiyaashooda Yair Lapid ayaa waxa uu sheegay in Ben-Gvir iyo Smotrich aysan awood u lahayn in ay fashiliyaan qorshaha Trump ee lagu joojinayo dagaalka Lapid wuxuu yiri 2 saacadood gudahood marka maanta ay dhamaato maalinta ciidda Yuhuudda waxaad maqli doontaan hanjabaad ka imaanaya Smotrich iyo Ben-Gvir laakiin waxaan xasuusinayaa hanjabaadaas inaysan dhab noqon karin ma ogolaan doono heshiiskan inuu fashilmo waxaysna hadlay Gadi Eisenkot oo horey uga tirsanaa golaha dagaalka Israa'iil waxaana uu sheegay in tani ay tahay fursadii ugu dambeysay ee lagu sii deynayo maxaabiista sida uu sheegay Lapid ayay noqotay waxa goor dhaweeyta soo hadlay wasiirka amniga qaranka Israa'iil Itamar Ben-Gvir waxa uu sheegay in Xamaas inay xukunka sii hayso marayka Gaza isla markaasna ay sii wadato siyaasadeeda ay tahay waxa uusan aqbalayn waxa uu sheegay inay habboon tahay in la soo celiyo sida hadalku uu yiri dadka la afduubtay laakiin wuxuu yiri marnaba ma aqbalayo joojinta dagaalka ilaa inta la hubinayo Xamaas inaysan awood ahaan iyo siyaasad ahaan aysan jirin
waxa kale oo sheegay haddii arrintaasi xukuumadda Netanyahu ay ku dhaqaaqdo inuu xukuumadda iskaga bixi doono sawirkan idin muuqda waa 100,000 oo qof dad lagu qiyaasay oo isugu soo baxay magaalada Tel Aviv dadkan ayaa waxa la sheegayaa in mudaharaad ay wadaan waxaana si adag ay u dalbanayaan si dagaalka in lagu joojiyo maxaabiista la isdhaafsado isla markaasna aan la fashilin qorshaha Netanyahu waxa la sheegayaa inay wataan hal ku dhigyo ay ku cambaareenayaan Netanyahu iyo xukuumaddiisa iyagoo sheegaya inaysan aqbali doonina wax ka yar heshiis iyo sii deynta maxaabiista qodobkaas halkaas aynu kaga gudubno xagga magaalada Muqdisho aynu eegno war hadda uu ka soo dhacayo ciidamada ammaanka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in ay ku guuleysteen in ay laayaan dhammaanba maleeshiyaadkii al-shabaab ee ka dagaalamayay godka Jilcow oo maanta weerar ay ku qaadeen galabta saacadu markay ahayd 4tii galabnimo warka ay waxaan taasi ku dalayaa in howlgalkii hadda la soo afjaray isla markaasna maxaabiistii xabsiga ka baxsatay la soo ururiyay qasaaraha iyo waxa dhacana dib laga soo sheegi doono waa tahay wixii warar arrimahaasi ku soo kordha waynu arki doonaa haatan waxaynu soo gaarnay sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay aanaba waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen waxaan idin hayaa sheeko la yaab leh oo ka taagan waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa lacag cusub oo la sameynaya waxa uu rabaa sawirkiis in la saaro waaxda maaliyadda waddanka Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay inay ka fiirsanayso soo saarista lacag $1 ah oo wadata sawirka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxaana la sheegay in lagu xusayo 250 sano guuradii ka soo wareegtay madax banaanida Mareykanka sida ay sheegeen mas'uuliyiinta waaxdaasi xogayaha maaliyadda Scott Bessent ayaa waxa uu faafiyay waraaq uu soo saaray xogayihii hore ee maaliyadda Brandon Page kaas oo lagu muujiyay naqshado horudhac oo la xiriira lacagtan cusub baraha bulshada ayaa waxa la soo dhigay sawirkan idin muuqda waxaana ka muuqanaya mid ka mid ah sawirka Trump oo wajiga hore lacagtaas ka muuqda naqshada labaad waxay muujinaysaa isagoo gacanta kor u taagay oo feer u duuban yahay oo hor taagan calanka Mareykanka isla markaasna waxa lagu dul qoray ereyada dagaal sawirkaas ayaa waxa la sheegaya in inta badan uu ahaa sawir ka turjumaya markii la damcay in la dilo Trump oo ku jiray ololaha doorashada Kongareeska Mareykanka ayaa 2020 waxay meel mariyeen qaanuun uu saxiixay Trump intii lagu jiray muddaxileedkiisii hore kaas oo ogolaanaya waaxda maaliyadda inay soo saarto $1 oo leh naqshado ama astaan gaar ah oo lagu xusayo 250 sano guurada ka soo wareegtay madax banaanida Mareykanka waxaana la sheegayaa in lacagtan la bilaabayo soo saaristeeda bisha January sanadka 2026 dad badan ayaa hadal haya oo waxay leeyihiin caadiyan lacagta waxa la arki jiray madaxweynayaasha markay xukunka ka degaan ama ay geeriyoodaan in sawirkooda lagu dhijiyo lacagta ama lagu sawiro laakiin madaxweynuhu imika nool in la yiraahdo lacagtii isku sawiraya waxa loo arkay inay tahay awood marorsi oo si hadalka loo dhigay Trump iyo kooxdiisa ay wadaan